salaadiin boqorro cuqaal ka socday beesha garxajis ayaa maanta kula kulmay magaalada laascaanood madax dhaqameedka gobolka Sool. kulankan ayaa ujeedkiisu daarnaa taageerista murashaxa xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro. annagu waxaan wadnaa markaan shirnay aanu dhinac walba ka eegnay aanu dalka qiimaynay iyo xaaladdu halkay marayso waxaanu wadnaa musharaxa xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro. waa idin hadlayna waxa xaqiiqo ah maalintaan soo galay sidii loo soo dhaweysay inaan ii soo dhaweyn maanta haddaad soo shirteenna sidaa loogu soo shirteen midaan inugu shirin baa xaqiiqadan uu ka markacaya laa shak. ilaahay hayga sharfo waa mahadsantiin. waxaan u malaynayaa hadday ninkan habarowal aad u ogyihiin kelmadaha wadaanta ku yidhi ka beeraha hartigeediyo baygaad sheegaysaa umada baaxdi kelmadaani wax badan dhulbaanta u sheego waxbaad doonayseena noola timaadeen waa idinku soo dhawaynaynaa meesha nasiirkeeda iyo danteeda iyo aayaheeda ay ka arkayso haddaa idinka tiirnamasiirana waa idinku soo dhawaynana codka aad weydiisateen rabanaanka aad weydiisateenna fiilaweynta gobolka kasoo qaatay inay ka aqbalaan markaad maqayseen gobolka Sool xaysimo iyo salaad oo qaashi ka tiri salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo gobolka Caynba waxay weydiisayna yalla dikala dad maayo yalla hadii shalay lagu yiri codka weydiisayna Cabdiraxmaan waa nin oday ah oo degan mutacalima aad iyo runtii dadkii ah dulqaad badan waa nin aan ogan karo haddii ay u suura gashay wuxuu hogaamin karaa Afrika oo dhan. dowladda Yurub waxay diyaar u tahay dhammaan codkeeda inay siiso mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro. arrintaa waa aqbalay waa idinka yeelay waxaan islaasoo waa idinka yeelay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waa soo dhaweynaa si muslimaa oo helnaa oo tuulaadaan idin soo dhaweynaa ku soo dhawaada meeshaad timaadeenna waa magaaladii iyo gobolkii. munaasabadda ayaa ku soo dhammaatay jawi degan iyadoo farta lagu fiiqay in Cabdiraxmaan Cirro uu yahay murashaxa kaliya ee xilligan u qalma jagada madaxtinimo ee dalka. xamse raadeeye RTN laascaanood.